Soomaalida waxa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, isla markaana isku dhaqan ah. Diinta Islaamka oo ay Soomaalidu haystaan waxa la sheegaa inay soo gaadhay Geeska Afrika qarnigii 7, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada Madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. Haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay Geeska Afrika iyo dhulka hadda loo yaqaan Soomaaliya? Maxaa saameyn ah ee ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada? Ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta? Ma jirtay xinif u dhaxaysay hogaamiyaasha diiniga ah? Haddaba dhowrka barnaamijka soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda Islaamka. shahaadadiisa PhD-gana waxa uu ku sameeyay mawduucaasi isagoo ka qalin jabiyay Jaamacadda McGill ee dalka Canada. Waxaa taariikhda la sheegaa in badan ka badan lagu elceliyaa in Islaamku Soomaaliya soo gaaray markii ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadkii muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyay magaalada Maka ay yimaadeen dalkan hadda meesha la yiraahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa ka jira Abyssinia laakiin Ethiopia ka tirsan tahay oo la yaqaano taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo Afrika markii ugu horeysa oo Islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay. dhulku dadka waqtigaas Soomaaliland ma ahayn dhul isku dhafurna waxa laakiin daraasad markaan ka sameeyay waxa u dhaxaysa marka meesha hadda Soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo Zayda markaan ka soo qaado iyo Aksum waxa u dhaxaysa 1 kiiloomitir oo wadooyin lahayn. waxaa la ogyahay kala dagaalkii ka dhacay waqtigii Abu Bakar dagaaladii ku dadkii diinta ka baxay marka la dagaalamay in qabaa'il badan oo la jibiyay qaarib dad kamid ay u soo carareen Soomaaliya waqtigaas ama dad badan oo ka soo cararay xukunkaas inay yimideen waa la sheegaa oo Umaaniyiin ah u badan. waxaa kaloo la sheegaa in Soomaaliya ay Islaamka soo gaaray waqtiga Umar ibn Khattab oo madaxda ahay oo magaalada Muqdisho ay qaraan u ururi jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii Umar ibn Khattab ay sii jirtay waa la sheegaa. Soomaaliya Islaamku wuxuu ku soo gaaray si nabad ku soo gaaray waxaba yaraatay qorayii loo qaatay jihaad ma jirin. Muuse Sheekh Xariir waa aqoon-yahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaas ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Xabash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh. hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu alayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Maka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen wadanka Xabashida u gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Xabashida oo magaciisa la oran jiray kulkii hore la oran jiray Nugus al-Ashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta Islaamka isagu qaatayna loo bixiyay Ahmed al-Najashi yaa soo dhaweeyay oo taariikh aan oo la yaqaano oo ay ku hataa mataqaanaa nimankii Quraysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay kala ka soo daba direen ay yiraahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qolada muslimiinta ah oo hogaamiye u ahaa oo horkacay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jaafar Abu Talib oo maxay ahaa ninka weynaa Ali Abu Talib saxaabigii weynaa maxay afartii khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan Carabta iyo Xijaaz inteeda kale diinta Islaamku intayna meel laba ku faafin intayna Madiina tagin intayna meel iyo mataqaanaa wadankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta Islaamku. waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd? waxay ahayd iyadoo oo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu u dood qaaday nimankii Quraysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen. Jaafar Abu Talib uu yiri baliiga waran waxa uu keenay maxay ahayd rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta Islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb kamid ah uu akhriyay aayado kamid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri mataqaanaa diintayadu wixii ay sheegayseen aaminsanayn
buu nabiganu sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxaa yeelay injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana idin soo dhaweynayaa oo si buuxda iyo gacmo furan ugu soo dhaweeyey nimankii Quraysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeen hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen ba intuu sayray buu yiri ila dhaafa iga baxa wadanka noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan aniga ma taqaana wadankayga ay si xor ah ugu noolaan karaan Professor Maxamed Mukhtaar waxa uu jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta waxa uu si gaar ah uga hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu islaamku ka soo galay gobolada dhinaca koonfurta waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dawladihii yaryar ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahla inay diintu u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaan Soomaaliya laba hijradood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Maka ay muslimtay marka wax ka harayna male marka qaar waxay yiraahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooday ka tageen ama dad ay muslimiyeen ba iyo islaamka ka bilaabmayo taas waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo xoog leh badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiirada Carabta maadaama markuu nabiga dhintay alayhi salaatu wassalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sokeeyay ay dhaceen ay ugu horeysay yani dagaalkii sokeeyay Sayyidina Abu Bakr lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan xuruub ridda wars dad badan baa soo cararay Oman bay soo maray waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee Soomaaliya ay ku soo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khalifa Usman la dilay udhiisi dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii Ali la dilay Sayyidina Ali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaan ashraaf ayaa soo cararayo Soomaaliya soo gaaraya marka islaamku Haarunow saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geeska ku yimid dadku waxay eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika Soomaaliya مثلا Zayla oo kale iyo Berbera iyo ay u dhow yihiin dalalka Carabta laga yaabay in meeshii uu ka soo bilaabay laakiin xaqiiqadii waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabasho la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer Maka ay ciidamo soo direen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqaayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska Afrika way fogaanayeen marka ilaa waxay gaareen xeebahan hadda maanta loo yaqaan Banaadir iyo wax ka sii hooseeyo oo Kenya iyo dhulkan Soomaaliga oo ku batay marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen meesha kuma ay nagaanayeen marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abyssinia labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaaneen kadib bay haddana islaamka oo sii fidaya oo sii galaya Abyssinia ama Xabasho dawlado fara badan baa ka dhisman doona bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan u dhaxeeyo kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aad u xoojin doono oo maartay gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale marka dadka ugu horeeyay ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan waxa la tuhmaya dadkii muslimiintii ugu horeeyay ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa ku lahaa waxay ka soo cararayaan dagaaladii Sayyidina Abu Bakr waa sanooyinkii masalan hijrada 13 dad soo cararay baa jiro imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaawdo marka baraawo xeebtan ay imaanayaan waxaa la haayaa masalan yani Muqdisho nasiib daro hadda maalin markaan tagay waan soo waayay museumka xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagaxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkood taariikhdiisu ay ahayd 101 hijriya 101 hijriya waxa way waa qarnigii 7aad ama 8aad miilaadiga weeye islaan meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Abdussamad yani dhagaxa madaxeeda yaalay 101 ku taalay hijriya islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138 marka يعني آديات وقت يعني وحيابان وحيابها للدليل كرايو مارتي إن مسلم أو يمي أي مادين مارتي الصوماليا قرني كوات جارهان قرني لبعض آدي وصوب بدناي xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika
isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka waxayna beddeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday. intuusan islaamka imaanin geeska Africa diimo waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina waxaa jiray diimo oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semiticada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax oo dabiico ah buura wax ah Soomaalida masalan waxaad maqlaysaa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga duceysto oo maxaan yidhahdaa nabad laga raadsho marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaanan lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ah ama non-believers waxa la yidhahdo ay badnaayeen. deegaanada Soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyay ka yimaada jasiiradda Carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo Qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika. masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7aad waxaana uu leeyahay 2 qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgeliyo naxariis korkiisa ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Bershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. diinta islaamka anaga sida aan qabno oo qoraaladu ay qabaan waxaa la aaminsan yahay diinta islaamku inay dalka Soomaalida ay soo gaadhay intii aan Madiine hijradeedii aan la gaarin taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Talib koox islaam oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada oo boqorka xabashada yimaadeen. hirka labaad oo lagu wada inuu ahaa hil aad iyo aad u weyn wuxuu ahaa 2 nin oo walaala oo boqorka ka ah dalka Cumaan oo la yiraahdo Suleymaan iyo Saciid Galandi. nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 75 ilaa 95 hijradii markay ahayd. nimankaas oo iyaguna markaa ka soo cararay cadaadiskii uu saaray Cabdilmalik bin Marwan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. hirkaa ku xigay wuxuu ahaa Zaydiyiin. marka Zaydiyiintu waxay ka yimaadeen Yemen waxaa weeyaan waa koox Shiica ah 122 hijradii markay ahayd ay yimaadeen. waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen dee aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ah buu ahaa. waxayna halkaa tageen markii umawiyiintu ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow. nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo waxayna joogeen 200 sano intii ay Sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrooto ama ay soo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada bari. marka iyaguna waxay u guureen gudaha. waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Portugiiska uu qoray oo qoraalo Portugiiska uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah oo 1505 ah oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horeysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga anaga maadaama uu xiriir hore laga dhexeeyo anaga iyo koonfurta Carabta ayay dadkaas islaamka markii mar walba dawlad islaam ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tabardaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed ilaa iyo 12 hil baa imaadeen maaragtay. waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda Carabta si ay diinta u faafiyaan. waxaa ku xigay qolada Zaydiyiinta ah hil kaleeto oo ay ka yimaadeen jasiirad la yiraahdo Isha. waxay ka soo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho. waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin
qolof shiica oo faatidiyiinana waxay yimaadeen baraawe oo ayagaa baraawe dhisaydaa dad qabaan. taatii ku xigtay waxaa jira nin la yidhaahdo xasan bin cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen shiiraaz oo boqorka shiiraaz oo xasan dhalay oo markaa ninkaas hooyadiisna naag madooba ahayd. marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midab dakoor, meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraabadiisi iyo walaalihiis oo isaga la dhashayna lahooye aha. waxay imaadeen markaas xeebaha soomaalida, gaar ahaan waxay yimaadeen kilwa, waxay yimaadeen baraawe meesha la yidhahdo iyo mombasa. hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray sheekh abaadir. marka sheekh abaadirkaas wuxuu imaaday qarnigii afraad ee hijriyada ayuu imaaday. ninkaasi wuxuu tagay harar, wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta islaamka halkaa ka faafiyeen. marka abuusida nin la yidhahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug wuxuu sheegayaa qarniga 14aad dadka sayrac degan kulligood inay islaam yihiin. marka hirkii ku xigay wuxuu ahaa dad ku abtirsada caqiil bin abi taalib. dadka ayaga ah waxa ay degeen magaaladaada jabarta oo imaaraadka islaamiga ah oo geeska afrika ka jireen taabacsanayd awfaat oo zaylac laga xukumay. halkaasay dadkaasi degeen, halkaasay ku tarmeen. hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimid 44 sheekh qarnigii 15aad waxay kusoo degeen iyagoo ka yimid xadramood magaalada berbera. markaa kadib xoogaa bay ku nagaadeen berbera, way isqaybiyeen, waxay isu qaybiyeen soomaaliya oo dhan. ragga ayaga waxaa kamid ah nin la yidhaahdo sheekh ibraahim abuzarbay. ninkaasi waxaa uu tegay harar, saldhig buu halkaa ka dhigtay, dacwadan halkaasuu ka faafinayay. muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guulaysteen inay diinta ku faafiyaan geeska afrika. imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxaa Itoobiya ka aasaasmay dawlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka, inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida kiristaanka. tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dawladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhulballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska afrika. qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee galka baarista.